عليكم داود يا لوحان كان idinku soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa sanadkii 2020 ee hadda la soo dhaafay sanadkii dhamaaday ee 2020 waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo in badan la soo xasuusan doono taariikhda casriga ah haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa waxyaabaha aan isleenahay waxay ugu saameyn badnaayeen isla sanadkaasi COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. 2020 is now the deadliest year in The US long-running history. border dispute between Armenia and Azerbaijan is writing a new chapter in the conflict. Fighting has once again erupted between neighbors. Baku and Yerevan are pointing the finger at each other in a squabble over who started it first. Saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyon. Coronavirus waa dhacdadii ugu saameynta badnayd sanadkii la soo dhaafay waxa uu ka dilaacay magaalada Wuhan ee wadanka China December 2019 ilaa iyo hadda waxa uu ku dhacay xanuunku dad ka badan 8 milyan oo qof caalam halka ay u dhinteen dad ka badan 1.8 milyan oo qof waxa uu ahaa sanad lagu xasuusan doono xaal adag oo kamid ah sanadihii ugu adkaa taariikhda casriga ah ee aadamaha isla markaana bedelay habnololeedkii maalinlaha ah waxa ay dad badan waayeen kuwii ay jeclaayeen xaal aynan la joogi karin daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshooda islaam nacaybka waxaa sanadadii u dambeeyay aad u kacay islaam nacaybka heer u gaadhay in madaxweynaha wadanka Faransi oo ah wadan muslimiin tiro badan ku nool yihiin marka loo fiiriyo wadamada kale ee gaalada ah in uu si public ah u dhaho diinta islaamku waa diin qalalaase haddaba waxay la kulmaan dadka muslimiintu cagajuglayn dhan walba ah iyagoo kaliya ta lagu weerarayo muslimiin ayaa tihiin xaalad uu ku tilmaamay madaxweynaha wadanka Turkigu inuu ahaa sanad islaam nacaybku ka faafitaan badan yahay cudurka coronavirus haddaba waxaan ku jirnaa zaman ay wadamada muslimiintu laba isku haystaan oo ay fooda iskula jiraan iska daa diin ay difaacaan oo kala baratankii wadamada carabta ee xiriirka Israa'iil in wadamada carabtu badankood aqoonsadaan Israa'iil waa qadiyad saameynaysa walaalaha Falastiin iyo dhulkooda xoog loogu haysto ilaa iyo maanta sidoo kale dhabarka ay u jeediyaan Falastiiniyiinta waxaana hormuud ka ah wadamadaasi wadanka Imaaraadka Carabta waxaana ugu dambeeyay oo xiriir la sameeyay wadanka Morocco runtii in maanta halka looga tago shacabka Falastiin oo ay u kala dhuntaan Yuhuudda waxay ku tusinaysaa tafaraaruqa ka dhex jira wadamada Islaamka lagana baxo wixii hore loogu heshiiyay oo ahaa in aan la aqoonsan ama la heshiin wax Israa'iil la dhaho ilaa iyo inta ay ka baxayaan dhulkii ay qabsadeen 1967 Ilaahay ayaana u maqan ummadan muslimiinta ah oo aad masaakiinta u ah wayna xoroobi doontaa Qudus insha Allah